marar badan ayaa waxaa la lahaa gobolka banaadir waa inuu amniga ka shaqeeyaa. maanta waxaa fal galay taliyayaashii iyo wasiirkii, guddoomiyeyaashii degmooyinka, guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisii, xafiiskii madaxweynaha, xafiiskii ra-iisul wasaaraha, golihii wasiirada. waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada muqdisho wax laga qabto, laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo. waxaan rabnaa su-aaluhu inay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa. sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu siduu yahay. waxaa la rabaa inaad su-aalaha aada weydiinaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyayaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aada u baahan tihiin iyo ciidamada aada u baahan tihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray. laakiin waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mida gobolka banaadir inuu joogo ciidan ku filan, inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda darisaynta idinku aad abaabisheen oo qayb ka ah ciidanka. waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka banaadir ka mida haddii qof cusub ay ku soo zaawido in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay, haddaan la ogeyna in cabsi lasoo dhigo. ma rabno waktigay ahaa jirtay in magaaladana cid walba iska joogto. qof walba magaaladana way u furan tahay, laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay. sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo carruurteenna ma rabno inaan khatar dambe ku fiirsanno. kuwii khatarta ka ilaalin lahayna waa idinka. arrinka labaad waxay tahay magaalada muqdisho waa astaantii qarannimada soomaaliyeed. waa magaalo madaxdii waddanka soomaaliyeed ku dhowaad 30 sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay. waad ogtihiin carruurta dalka dibaddiisa ku dhalatay marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxa ugu horeeya bartaan waxa ugu horeeya magaalo madaxdii. magaalo madaxdii sidaas aheed oo idinku aad degantihiin oo carruurtiina ay degan tahay oo waalidkiina ay degan yihiin, inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo, annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa. haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan, in sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo, in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo, tallaabada ugu horeeya oo nala ka rabo waxay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimadii in amni laga dhigo. maanta waxaa laydin siiyey marka fursad, gobolka banaadir, guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan inta ka hoos shaqaysa, waxaa la idin siiyey fursad ah in taliyayaasha ay hortiina ka hadleen ay yidhaahdeen idinkaan awoodda idinku soo biirinaynaa, idinkaa indhihii ah, idinkaan idinla shaqaynaynaa si amniga loo sugo. waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad u qaadataan si dhab ah. amniga lama sugi karo haddii dadka degan degmooyinku aanay u soo istaagin amniga. haddii shacabka iyo dowladda idinku marka waa inaad marka ugu horeysa aamintaan dowladnimadiina. idinku waa inaad aqbashaan kuwa idinka hooseeya inaad la xisaabtantaan, idinkana laydinla xisaabtamo, idinkuna aad kuwa idinka sarreeya ka shaqaysaan qaabkii loola xisaabtami lahaa. sababtu waxay tahay magaalada amnigeeda marka aad sugtaan ayaa shacabku aqbalayaan shaqada aad u haysaan. haddii laakiin sanad walba ay dadkeennu ku baaba'aan oo maalin walba qofna la ka dilo oo guryaheennii iyo ganacsigeennii la qarxiyo oo adduunyadii ay ka baqdo magaalada muqdisho inay timaado oo sawirka dalkeenna laga bixinayo uu yahay sawir xabad iyo qarax, carruurteenna waxaan uga tagna ma hayno. sanaday nagu qaadatay inaan isku soo dhaweyno oan keenno meesha maanta ay joogto. waxaan aaminsanahay oon kulligiin idinkaga mahad celinayaa in maanta aad taagantihiin meeshii ugu wanaagsanayd. laakiin
dowladnimadu waxay tahay guddoomiye waaxid ama laameed oo qaatay mas-uuliyad ka dheer kuwa kale.